kulanti wacan wanaagsan khiyaartaana daawanaysay ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ay noo suurta gashay inaanu kula kulanno ergiga gaarka ah ee dowlad goboleedka IGAD ambassador Maxamed Cabdi Afi oo isagu ka mid ahaa waftigii ka soo qayb galay shirkii wadamada Afrika iyo Yurub ee lagu qabtay magaalada Brussels ee wadankaasi Belgium ambassador waxaanu diinaynaa marka ugu horeysa bal horta nooga xog waran doorka IGAD aha ka qaadataan Soomaaliya horta urur goboleedka IGAD waxa weeyaan dawlado ku bahoobay iskaashi inay sameystaan inay maaragtay iska kaashadaan yani wadajirka iyo danaha u dhaxeeya dawladahaasi Soomaaliyana waxay ahayd maaragtay saldhigii dawladihii bilaabay urur goboleedkan 1986 ayaa la bilaabay urur goboleedka IGAD Soomaaliyana waxay ahayd xubin firfircoon runtii oo urur goboleedkaasi ka mid ah ilaa haddana maaragtay urur goboleedkaasi IGAD Soomaaliya wali way ka tirsan tahay xubin xoog lehna way ku leedahay ambassador marka laga tago xubinta firfircoon ee ay ka tahay maxaa dan ah ee ay ku qabtaa Soomaaliya IGAD horta waad og tahay danooyin fara badan ayay ku qabtaa horta waxaa way daris wanaag ila urur goboleedka IGAD waxaa way dawladaha Soomaaliya dariska la ah intay dawladda dhexe ay burburtayna waxay ahayd meesha kali oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed ee u soo yaaceen oo nabadgelyo iyo nolol ay ka soo raadsadeen dawladahaasi dariska ah waa Ethiopia waa Kenya waa Djibouti Uganda waa Eritrea Sudan marka midda labaad hadee waxyaalo fara badan oo iskaashi oo becsharo ayaa ka dhaxeeya oo saad ogsoon tahay shacabka ayaa isku mara oo becsharo ay ka dhaxeeyaan waxaad ogsoon tahay siyaasadda Soomaaliya intii hadda dawladda dhexe ee burburtay dib u heshiisiintii waxaa hormuud ka ahaa dawlad goboleedka IGAD oo intaasoo shir baa lagu sameeyey Djibouti lagu sameeyey shir shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda la isku keenay waxaa lagu sameeyey Ethiopia waxaa lagu sameeyey Kenya oo midka ugu dheeraa u ahaa ilaa ay laga dhisay maaragtay dawlad marka hore oran jiray dawladda ku meel gaarka ee federaalka haddana dawladda federaalka Soomaaliya marka runtii waa aad iyo aad bay ay isku xiran yihiin ayna kala maarmin baan ku dhihi karaa yani Soomaaliya iyo dawladaha IGAD yani ka tirsan tahay dawlad goboleedka IGAD dad fara badan baa iyagu waxay ka dhawaajiyaan in dawladaha IGAD laftooda waqtiyada qaarkood tusaalahaan marka laga hadlayo qodobadii United Nations ee cunaqabataynta lagaga qaaday hubka oo kale in haddana kuwa dacwooda ee yiraahda hubkaasi Soomaalidu kuma filla dawlad ahaan waxa laga yaabaa inuu gacanta argagixisada galo ciidan Soomaaliyeed sidoo u dhismi lahaa hortaagan inay ka mid yihiin IGAD maxaad arrintaa ka qabtaa wallahi hadda waxna waa propaganda waxna waa xaqiiqo weeyaan urur goboleedkan wuxuu hormuud ka ahaa in dawlad Soomaaliyeed la helo intan ku sheegay intaasoo wadan ayaa lagu martigeliyay shirkii shacabka ee ummadda la isku keenay madaxda Soomaaliyeed haddana runtii saad ogsoon tahay ciidamada jooga shisheeye oo jooga Soomaaliya 90% waxay ka imaadeen dawladaha yani IGAD Kenya Djibouti iyo Ethiopia iyo Uganda marka hadii waad garan kartaa marka nolosha shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka ku nool IGAD oo ilaa 200 oo milyan oo shacab ayaa ku nool urur goboleedkaas gudihiisa marka Soomaaliya kama maaranta iyagana Soomaaliya kama maarmaan marka waxa weeye xiriir soo jireen ah laga maarmaan ah muhiimna in la xoojiyo marka hadii mana hor istaagi karta maartay in la helo dawlad Soomaaliyeed iyo ciidan Soomaaliyeed IGAD ma hor istaagi karta anigana warka ma hay mana ogolaan doona hadii arrinkaas ay soo baxdo runtii waxaan ognahay IGAD ahaan ina gacan weyn ka geysateen sidii loo dhisi lahaa maamulka Kismaayo bal arrintan ugu horta runtii saad ogsoon tahay ururkan wuxuu dawladda Soomaaliyeed waqti walba uu diyaar u yahay inuu ka caawiyo soo celinta dawladnimada Soomaaliyeed dastuurka Soomaaliya hadda oo qoran wuxuu sheegayaa in la sameeyo dawlad goboleeyaal intii la gaarin 2016 in dawladda Soomaaliyeed ay sameeyso dastuur taam ah hadda ilaa ku meel gaar ah
in la hela doorasho shacabka ay doortaan madax ay iyaga ku kalsoon yihiin markii la gaaro 2016 Soomaaliyana maadaama ay ka tahay kamid tahay ururkan IGAD waxay madaxweynayaasha isla qaateen ururkan oo maaragtay hogaaminaya in Soomaaliya marka lagala shaqeeyo soo celinta dowladnimada iyo nidaamka wadankaasi marka arintan dhismooyinka regions saad ogsoon tahay Juba Interim Administration wuxuu ku dhashay dowladda Soomaaliya nidaam ay iyada markaa ay raalli ka tahay urur goboleedka IGADna marka uu hogaaminayo maaragtay dhismahaas oo ka caawinaya dowladda Soomaaliyeed maxay leeyahay anagu waxaan leenahay taariikh lagu fahmo dib u heshiisiinta yani waxa af Ingiriisku dhahan institutional memory oo Somali reconciliation way dhismatay hadda interim Juba administration inta kale oo dhismi doontana ururka wuxuu diyaar u yahay inuu dowladda Soomaaliyeed ka caawiyo mar walbana hoggaanka arintaasi waxa wadaya dowladda federaalka Soomaaliyeed inta kale IGAD mase beesha caalamka waxay kulli ay noqon yihiin dad caawiya nidaamkaas dowladda ay hogaaminayso marka arintaas hadda meel fiican ay maraysa waxaan rajaynaynaa inta dambe soo hartay si degdeg in loo dhiso haddii dowladda u baahato caawinaad dhinaca urur goboleedka IGAD taasna diyaar u nahay inaan ka caawino maamulka laga dhisay isaga dhinaca baydhabo oo kale wax luga ma kula haydeen ama wax caawimo ama ka geysan maya weli kaasi waxa hogaaminaya dowladda Soomaaliyeed iyadaan anaga uga dambeynaa haddii door laga baahdo aan soo galno oo ku caawino oo maaragtay ay daruuri noqoto inaan roolka ciyaarnana diyaar u nahay isla markaasi markuu dhismo yaan rabnaa anagu la kaashanayna dowladaha dariska iyo caalamka beesha caalamka in dowladda Soomaaliyeed laga caawiyo marka waxa la yiraahdaa capacity building ilaa dowladnimadu waxay u baahan tahay shacabkii in loo dhiso institutions oo nabadgelyada iyo kala dambeynta soo celiya marka taasi dowladda Soomaaliyeed ayaa hogaaminaysa urur goboleedka iyo beesha caalamkana waxa laga rabaa inay dowladdaasi la garab istaagaan wax walba oo taageero u baahan tahay si arintaas lagu suurtageliyo marka taas diyaar u nahay waqtiga loo baahdo inaan door ka qaadan ambassador waxaad ka warantaa haddaba haddaynu imika nimaadno magaalada Brussels waxaad ka mid ahayd waftigii urur goboleedka IGAD ee yimi shirkan Afrika iyo Yurub bal ka waran marka ugu horeysa saasaanka shirka sidoo ku bilowday iyo waxyaabaha laga filayo والله أرتو شركة شر وناكسن ويان وشر دعم مدة 3 سنوات مر وحويان هرتو عاونة سكاشة هي حريركا أفريقيا هي يوروب ودكسون تهاي مارتها دولتها أفريقيا دق فربضن أي كهلان ودمada يوروبينكا خاصة يوروبين كوميشنكا هي دولتها يوروب أنا أورور أهان برنامجياشا aan ka wadno wadamada IGAD oon ahayn siyaasadda kaliya in fact oo ah infrastructure dhismaha jidadka oo ah kaabayaasha dhaqaalaha oo ah caafimaadka oo ah maaragtay beeraha iyo cuntada waxaasoo idil maaragtay waxay ku bixiyaan dhaqaale fara badan IGADna qaar baa u soo marta dhaqaalahaasi inta kalena dowladaha ayaa dowlad loo siiyaa marka waa shir wana runtii aan u arka inay muhiim u tahay Afrika waliba dhinaca dhaqaalaha maxay dhaqaale fara badan oo Yurub ayaa ka gala maartay Afrika oo dowladahanaytu Afrikaanka ay deeq u helaan marka waa shir aan u arka runtii in la sii xoojiyo u baahan waqti walba IGAD anfacaya shacabka ku nool Afrika IGAD ahaan idinku maadaama imika dowladda Soomaaliya oo kale ay tahay ummad burbur muddo dheer ku soo jirtay waxyaabaha ay u gudbiseen Europeanka ama meelaha aad taabateen ma ku jirtay markaa in muhiimad weyn la siiyo si gaar ah Soomaaliya waa ku jirtay waana shalay ayaan shirkaasi la qaadanay commissionka waxaad ogsoontahay shir weyn in halkan lagu qabtay oo Brussels lagu qabtay loo qabtay dowladda Soomaaliyeed iyagoo fara badan loo sameeyay arrimahaas runtii cagajid fara badan ayaan la kulanay dowladda Soomaaliyeed ilaa iminka dhaqaale ku filan oo ka imaanaya ballanqaadadii la sameeyay weli lama fulin
marka shirkan oo kale wuxuu fursad noo siinaya inaan xasuusino ballanqaadkaas inay loo sameeyey dowladda Soomaaliyeed dowladdana u baahan tahay dhaqaale ay ku shaqeyso dhaqaale la'aan ayna shaqeyni karin runtii aad iyo aad ayayna u fahmeen arrintaas madaxweynaha Soomaaliya uu jooga oo runtii asagaba arrimahaasi shakhsi ahaantiisa u hadlaya ummadda Soomaaliyeed u hadlaya annagana taasan ka baayna maxaad u aragtaa iyada lafteeda waxa la sheegayaa in shirku Afrika iyo Yurub sanadkan uu dhinaca siyaasad oo gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha ku wajahan yahay oo wadanka China la yiraahdaa uu maalgelin fara badan ku sameeyay wadamadaasi Afrika intooda badan dabadeedna wadamada reer galbeedka aad moodo laftooda inay baraarugeen imanka oo la yidho bal horta Afrika inoogu yeedha arrinta maxaad walaa horta runtii Afrika waa la tartamaya oo tartan xoog la ah ka dhaxeeya maxaa la Yurub iyo China iyo meel walbaba Afrika waxay laga heli lahaa oo warshadaha Yurub iyo China iyo dhulka idin lagu sameyn lahaa يعني raw material كما سانا waxyaalaha warshadahaas u baahan yihiin badi waxa laga helaa doctoranta Afrika laakiin Europe iyo Afrika hadii xiriir dheer oo ki China ka dheer ay leeyihiin wadamadan badi waxa gumeystay Europe saaxiibo badan iyo luqad iyo xiriir fara badan ayaa ka dhaxeeya hadda China kulli runtii way dadaalaysaa marka Afrika in lagu tartamo waxay faa'iido u tahay Afrika ay faa'iido u tahay in China iyo Europe ku tartamaan dhaqaalaha ay ugu tartamaan ana waxaan arkaa inay faa'iido u tahay Afrikaanka iyo shacabka ku nool Afrika daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa waraysigii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay ergiga gaarka ah ee urur goboleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya ambassador Maxamed Cabdi Afey oo ku wareysanay magaalada Brussels ee wadanka Belgium aad iyo aad baad mahadsantahay